بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إلهي سبحانه وتعالى waxaa uu qur-aanka ku tilmaamayaa dadka bini aadamka ee dunida joogaa inay imtixaaman yihiin, la ibtilaynayo, kadibna la eegayo ibtilaaga inay ku guulaystaan iyo inay ku guuldaraystaan. waxaa ilaahay tusaale inagu siiyey nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam. waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun qaala innii jaaciluka linnaasi imaama qaala wamin durriyatii qaala laa yanaalu cahdi الظaalimiin. ilaahay wuxuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku leeyahay, waxaad xustaayo dadka uga warantaa id ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaat. nebi ibraahim alle subxaanahu wa tacaala markuu itixaamay ee ku itixaamay bikalimaatin weedho. weedhahaasi nebi ibraahim lagu itixaamay wax ka mida qur-aanka tilmaamay bay culammadu yidhaahdaan. ay ka mid tahay in dadkii ugu dhowaa diinta ka qaadan waayeen oo aabbihii diiday. ay ka mid tahay qoomkiisii in markay diideen ee uu dacwadda in badan u sheegaya inay isku dayeen inay gubaan, oo ilaahay ka badbaadiyey subxaanahu wa tacaala. ay ka mid tahay in lagu itixaamay inuu dhal waayo oo uu ilaahay baryo isagoo da-oo gaboobay ilaahay ilma siiyo, haddana ilmihii la amro inuu gowraco. weliba waxaa la amray wakhti ah wakhtigu falamaa balaqa macahu sacya baa ilaahay markii uu soo gaadhay inuu xoojin karo oo la caawin karo oo la shaqayn karo, markaasaa lagu yidhi gowrac. wiilkii isagana waxaa lagu itixaamaya hal uu gowraco, wiilkiina waa aqbalay. odaygii aan ilmaha kale lahayn ee culummadu yidhaahdaan isagoo 80 dhaafay buu ilmaha dhalay. ilmihii iyo markaasi qof waxtara oo wax qaban kara ayuu leeyay, yaa bunaya innii ara fi lmanaami annii adbaxuka fandur maada tara. wiilyarahaygiiyow, waxaa riyo laygu tusiyay anigoo ku gowracaya, ee maxay kuula muuqataa? wa ru'ya alambiyaa'i waxyi, ambiyada riyadooduna waa waxyi. saasaa lay waxyooday buu leeyay, ee maxay adigana kula tahay? ilmahan la itixaamaya ilaahay ku itixaamaya inuu aqbalo in la gowraco, isna in la gowracaa buu aqbalay. qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min aلsaabiriin. aabba wixii lagu faray buu leeyahay yeel, waxaad i heli doontaa aniguna anoo kuwa sabra ka mide. idan ibraahim ilaahay baa imtixaamay oo wuxuu ku itixaamay ilmo la'aan. kadib baa haddana la itixaamay markii ilmo la siiyey, oo ilmuhu markuu aadka u yar yahay waaba laga safri karaa ee qof shaqaynaya uu noqday ayaa la yidhi gowrac. ilmaha yar laftiisana waa la itixaama, oo waa qof tale laga weydiiyo in la leeyahay in lagu gowraco ka waran, oo isna gowraca aqbalay. ilaahay markaa wuxuu leeyay falamaa aslama
markay hoggaansameen labadooduba watallahu liljabiin uu dhinaca dhulka u dhigay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhawaaqay an yaa ibraahiimu qad sadaqta aru'ya markaasaa ilaahay u dhawaaqay oo la leeyahay ibraahimow riyadii waad ka run sheegtay wixii alla ku faray sideedii baad uga soo baxday ibraahim imtixaanaad badan buu galay oo inuu hijroodo in ilmihiisii la yidhaahdo gowrac in dab lagu rido waxaasoo imtixaana markuu soo galay kadib ayaa ilaahay wuxuu leeyahay faatamahunna waa tamaam yeelay waa dhammaystiray wixii imtixaan la mariyey si fiican buu uga wada jawaabay aayad kale ilaahay wuxuu ku tilmaamaya waibraahiima aladii wafa ibraahimkii oofiyey wax kastoo lagu itixaamo wuu dhammaystira qaala innii jaaciluka linnaasi imaama markaasaa ilaahay wuxuu nebi ibraahim ku yidhi maantaan kaaga dhigayaa dadka imaam ulhuda nebi ibraahim keligii baa imaam ahaabay umma ahaabay culammadu yidhahdaan kaana ibraahiimu umma liwaxdii keligii waxay dhahdaan afcaalu الصaalixaat lilumma ummadii wixii ay camal suuban samayn lahayd oo dhan baa keligii lagu ururiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala mansiladaasuu siiyey nebi ibraahim maruu joogo booskii abaalmarinta buu codsi keensaday codsigiisu waa maxay waa wamin duriyati ilaahu kuwan dhalana iyana a'imma ka dhig ilaahay wuxuu ugu jawaabay laa yanaalu cahdi الظaalimiin aniga ballankay ma gaadho inta dulmi samaysay yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala qaraabo iyo nasab lama wadaagno cid fiican buu ku xidhan yahay haddii isaga la beeniyo haddii isaga jidkiisa la raaci waayo ku bixin mayso naba ay dhalay iyo naba ay qaba iyo nebi baanu tollahay midnaba ee waxaa ku bixinaya iimaankaaga inaad ku sugantid oo ku dhaqantid oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaatid walidaalika baa ilaahay fii suurati taxriim 6 dumara baa ilaahay kaga warramaya suuraddaasi laba waa la waaninayaa labana tusaale fiican baa laga dhigayaa labana tusaale xun baa ilaahay ku tilmaamaya laba waa la waaninayaayo caaisha iyo xafsa oo nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam cumar iyo abibakarna dhaleen ayaa la leeyahay haddaa xumaha samaysaan guulaysan maysaan walow xaasaskii nebiga tihiin walow ina abibakar iyo ina cumar tihiin ina cumarna wax ku heli maysid ina abibakarna wax ku heli maysid haddaad jidka diiddo saxa ah dabeetana ilaahay suuraddan buu soo dejiyey uu 6daa dumara kula hadlayo labana waxaa la sheegay inay xaqa ku sugnaan waayeenoo ka weecdeen oo ah laba nebi qabeen daraba allahu maalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin waimra'ata luut kaanataa taxta cabdayni min cibaadina صaalixayn fakhaanataahuma falam yugniya canhuma min allahi shaya waqiila idkhula annaara maca adaakhiliin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay waxaa tusaale laydinka dhigayaa labadii haween ahaa ee ay qabeen labada nebi nuux iyo nebi luut dabeetana jidkii nebi luut iyo jidkii nebi nuux bay ka weecdeen inta hoogtay ee ahlu naarkaabay ku biireen baa ilaahay leeyay walow nebiye qabeen mar hadday xaqa diidaan oo diinta si dhaba uga weecdaan waxba nebinimadu caawin mayso waman yushrik biاllahi fakaannamaa khara min aلsamaa caawin mayso dhanka kale ilaahay subxaanahu wa tacaala laba dumaro oo khayr qabuu u tilmaamaya oo aan iyaga nebiye dhalin nebiyana qabin laakiin iyagu noqday dad khayr qaba
oo iyagu midina nebi dhashay midina nebi korisay laakiin wanaagooda laguma tilmaamin inay nebi dhashay oo quraama inay nebi korisay waxa lagu tilmaamay inay mowqif istaageen inay diintooda raaceen iyadoo imtixaanaadka ay soo mareen وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلهي وحكرته صالين كسين يا بار رب الله سبحانه وتعالى امرأة فرعون فرعون هوين يديسي فرعون ومن أعتى أعداء الله فرعون ومن أكبر الطغاة إنه طغى أي إلهي كسفي فرعون وبغركي أمري قبائل داننا نرقدل فرعون ونكبري وإنتو أركوا صعدا في ميل والبا ضدك أشيرتي إنه إلهي هي إنه ربي تأخذ بدايي له أنا ربكم الأعلى ربي إنك الريانة ضدك هو صعدا في حاشية ديسي حاشية هو وزير ذي أنتم كل دويو مضحلة أيكو يري ما علمت لكم من إله غيري وملائكو كتل ماما يا عمد الإسكاليين يا شعبويني ملائي بوحلي ما علمت لكم من إله غيري إله أنا أدري هاي ندين قرن مايو نينك هل كاتاغن أي هوين دينو بدر ديني كهرت ماتا نينك موقف كايسلة تاغن قبيل لن وحي لين قورعية dadka rabbinimada u sheegtay ilaahnimada ay haweenaydii ku tala gashay inay ishortaagto oo ay rabbi doorato markaas ilaahay baraysaa waxay leedahay rabbi ibn li 'indak baytan fil janna ilaahu adiga agtaada fircoon agtiisa maaha wuxuu fircoon nimco iyo haystay oo dhan uma muuqato fircoon la alaysa li mulku misr وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ورميدا نركي إننا نقول يا هي ملك مصر مصر بغرتو يدي أردن وحق السوري النعمان هستم يدا نركي ميدا نركي بولاي هي وهذه الأنهار تجري من تحتي وحوبية هوستيد الدريرية هوين إذن لقما قلدين إنay قصر كل شيء لقما قلدين بقرن وقبه ما يقلدين إن وبياد هوستيد الدريريان لكن وحاصرنا وحكا دورتي إلهي جارن مديس هاي مفسرين إلى هذا أنت أنا يقول الشيء شارك الشيء رب ابن لي عندك بيتا في الجنة إله أكتا دقوري إغسي بيلا ذي الجنة هوين إذا إلهي سبحانه وتعالى يدو النبي أهين أي إلهي كتاب كيس قرآن كحصة وقتل ما من موقف كيدي يسي الدين توقصب معطي هوين إلا بعد إلهي قرآن كحصة يا يقوى كمدة وامرأة ومريم قرآن كسيدة بدن إلهي سبحانه وتعالى مركض ضدك كور رميه أنبياء مويانه waxay yiraahdaan magacyada badan kale ma sheego مثلا نبي محمد عليه الصلاة والسلام dhowr jeer buu quraanka magaciisa ku qoray wixii saxaabada nabiga la noolaayo dhanna zayd oo qura ilaahay ka magac dhabay wixii qabaa'il carbeed meesha degana oo dhan quraysh qura ilaahay mar qura magac dhabay li ilaafi quraysh ilaafihi quraysh دوري الله واتن سنة النبي محمد سهيين عليه الصلاة والسلام هذا مر قرآن مقعد القرآن كتلمام القرآن كأسماء أنت بدل ما قيمة يوحى تلمام محي أفعاشه سيدي كي واحد سمية قبل عين كي شيء كي عين كي شيء مريم وقبل كلي القرآن كمقعد تلمام قرآن ما هي دوري الله واتن شير mararka qaarkood culimada qaar ay yiraahdaan 30 kabaar may ka talaabaysaa magaceeda ilaahay si cad u tilmaamay maryama ilaahay magaceeda waa ku celceliyo quraan la akhriya ilaahay magaceeda ka yeelay quraan ilaahay lagu caabudo inay noqoto maryama ilaahay wuxuu ku sifeeyay subhanahu wa ta'ala
inay ahayd gabadh saalixada oo dhowrsoon. waxaa ilaahay ku sifaynayaa dhowrsanideedaasi iyo cibaadadeedaasi karaamaadkeedaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamay. waa gabadha iyadoo masaajidka iska joogta xagga rabbi cunno looga keeni jiray, ilaa nebigii hayee zakariya uu weydiiyo waxaan xagga kaaga yimaadaa, ay tidhaahda in allaha yarzuqu man yashaa. ilaahay baa cidduu doona arsaaqa ay ugu jawaabaysay. hunaalika dacaa zakariya rabba baa ilaah yidhi. halkaa markii uu zakariya arkay haweenaydan iyo waxa karaamo ka dhacday buu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryey. haweenaydani waa haweenayda ilaahay ilma siiyey iyadoo ninba arag. waa nooc min alimtixaan. dhan marka laga eegana waa nicma, waa imtixaan. gabadh cibaado ku caanbaxday oo masaajid joogta maruuna la arko iyadoo calooshu buuranta oo ur leh. imtixaankaasaa ku dhaco dad oo dhammi ceebaynayaan. markaasoo la leeyahay waxa kanaad wadataa waa maxay? ilaahi subxaanahu wa tacaala laakiin iyana qur-aanku ku magac dhabay kuna tilmaamay allatii axsanat farjaha inay tahay tii dhowrsanaatay, cafiifadda noqotay. idan waxa aan tilmaamayn oo dhammi waa dad la imtixaamay. dadna imtixaanka waa ku guulaysteen, dadna waa ku guuldaraysteen. haweenkaasi afarta ayaanu sheegnay, labana waa guuldaraysteen, labana waa guulaysteen. ambiyadaa labada aynu sheegnay waa ku guulaysteen. qur-aankana imtixaanaad tiro badan oo kale ilaahay kaga warramaya khalqi badan. waxaan rabaa dersigoo kooban inaan tilmaamo. noloshan aynu noollahay waa imtixaan. intaynu nool lahay imtixaan baynu ku jiraynaa. imtixaankeennuna waa kala nooc, isku weji qura ma leh. badh baa xanuun lagu imtixaami oo mushkiladiisu xanuun noqon, oo la eegayaa bal intuu sabri karo iyo intuu ilaahay ku xidhnaan karo isagoo abuka, iyo intuu adkaysan karo. badh baa lagu imtixaami caafimaadkuna waa imtixaan kale, bal intuu ilaahay u mahadnaqi karo iyo caafimaadkan uu haystaa inuu nicmo yahay intuu qiri karo. badh baa lagu imtixaami faqri iyo gacantoo madhan, oo la eegayo bal intay sabri karaan iyo iyagoo fuqaraa intay ilaahay ku xidhnaan karaan. badh baa lagu imtixaami haninimo iyo xoolo, oo la eegi inay iyana dariiqa saxa ku sugnaadaan oo xoolahaasi xuquuqdooda ay mariyaan. waayo xooluhu waa waxa yaabaha aakhira le laba su'aalood: min ayna ji't, minayn, xagaad ka keentay, min ayna laka haada, xagay kaa soo galeen, iyo xaggaad ku bixisay. laba su'aalood. innaguse nicmo ballaadhan baynu isaga haysanaa. waa nooc min alibtilaa. waxay leenahay noloshaynu joognoo dhammi nooc kasta ha noqotee qaar baa lagu imtixaami ubad tiro badan oo la eegi bal waxay ka yeelaan iyo siday u koriyaan iyo u rabeeyaan. qaar baa lagu imtixaamay in ubadba la siin waayo, oo la eegi doonaa bal iyana ubadla'ida siday yeelaan iyo siday u sabraan. idan noloshu waa imtixaan. darsigeenna oo koobani wuxuu sheegayaa imtixaanka iyo mawaaqifta bini aadamku meeshay tay. ilaahay wuxuu inoo tilmaamay nebi ibraahim in la imtixaamay, oo qur-aanku imtixaanna waa weyn uu kaga warramayo. imtixaankaa dabka lagu riday, imtixaankaa magaaladiisii laga saaray uu hijrooday, imtixaankaasi ilmihiisii la yidhi gowrac, imtixaankaasi la yidhi ilmaha iyo hooyadood markay yaraayeen meel cidlo lama degaa intaad geyso maka iskaga tag, oo islaan umulah oo ilmo yar sidata intaad cidlo dhigto ka dhaqaaq la yidhi. imtixaanka ah in haweenaydiisii kale lagu imtixaamay in boqor kaba qaado, oo saara boqor intuu hungureeyo ibraahimna cidlo la diro, boqorkaasina uu xoog ku qaato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga dhowro uga ilaaliyo.
ibraahim imtixaanka qur-aanka kaga yaallaa aad buu u badan yihi laakiin waxaan uga dan lahaa un dariskan oo dhan inaynu hal tusaale un isa siinoo ah noloshani inay imtixaan tahay nebi ibraahim iyo nebi ismaaciille inay ka mid yihiin kuwa ku guulaystay haddaynu rabno inaynu dumar eegnana oo haddaa odhan lahaydeen kuwaasi nebiyey ahaayeen anagu nebiyana ma nihin rag bay ahaayeen ragna ma nihin qur-aanka in ilaahay ku tilmaamay dumar la itixaamay iyana oo suuratu taxriim 6 dumara ay ka warramayso laba la tilmaamayo faqad saqad quluubukuma in tatuuba ila allahi faqad saqad quluubukuma la leeyahay soo noqda waa weecateere oo xabsiya caaisha oo toobadkeenoo soo weecday iyo 4 tusaale lagu siiyey oo labana iyagoo nebiya qabaan ahlu naar noqdeen labana iyagoo midna uu gaalba qabo oo aanu nebi qabin laakiin nicmada adduun ku nool oo guri boqortooyo joogta imtixaan u aragtay oo waxa uu isagu ku faanayo dhadhan aanay u samaynay diinteedu dhadhan u samaysay oo ilaahay weydiisanaysa inuu guri jannaad siiyo fircoon iyo imtixaanadiisana in ilaahay ka nabadgeliyo midna iyadoo inana ilaahay imtixaamo ku itixaamay inay maxay la ceebeeyo waa bariyay unay uur la soo kacday iyadoo ninna arag iyadoo cibaado ku caanbaxday iyadoo karaamaadkeeda la ogiyo la garanayo haddana inay dhacday in la arkay iyadoo caloosha wax ku sida oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku itixaamay marka waxaan sheegayo oo ku soo koobaya waxa weeyaan dunidan imtixaan baa u joogtaan aakhiraanaynu u soconnaa jawaabta kama dambaystaana aakhiraynu helaynaa jawaabaha qaarkoodna adduunka intaynu joognaa baynu helaynaa abaalmarinada qaarkood haddaad imtixaanka ku dhacdo ilaahay adduunka intaad joogteen jaanis kale ku siiyo waa la arkaa waxaase kaloo la arkaa ciqaabaadka qaarkood in dunidaba lagugu mariyo waxaa kaloo la arkaa abaalmarinada qaarkood inaad dunidaba ku hesho idan ibtilaagu waa tiro badan yihi qur-aanka haddaa nadrada caynkaasa ku akhridaanna waxaa arkaysaan ambiyo badan oo ilaahay imtixaankaa mariyey maala nebi yuusuf iyo waxa imtixaan la mariyay ad arkaysa isagoo yar walaaladii naceen good lagu riday la iibsaday addoon noqday gabadhi hunguraysay baxsaday isku dayday inay kufsato ka cararay xabsi galay haddana akhiiran lagu abaalmariyey in madax looga dhigo ummadaba waxaasoo dhan waa ibtilaa idan noloshani waa ibtilaae ibtilaagaa sida ugu guulaysataan bay nolosha ku xidhantay anigu qof dumaraan ahoo waxba gacanta iguma jirin tusaale waxaa kuugu filan aasiya ayaa kuugu filan imraatu fircawn qof waliba naftiisa isaga hantaa go-aankeedana leh inan yar baan ahaa maryamaa ugu filan haweenay weyn oo la qabay baan ahaa kuwa saaqiday baa ilaahay tilmaamo ugu filan idan tusaalayaasha qur-aanka waa ku badan yihiin laakiin waxaanu dan leeyahay un habaadka diintu inuu yahay wax qofka muslimkaa looga baahanya imtixaanka kugu beegmaa kuu doonayaba ha noqdee xadiista nebiga ka sugan saxiixu muslimka waxaa ku yaalla inuu nebigu ku ducaysan jiray allahuma ya musarif alquluubi sarif qalbi calaa taacatik ibnu maajana allahuma ya muqallib alquluub habbit qalbii calaa diinik ilaaha qalbiga bini aadamka gegediyow qalbigayga diinta ku sug ilaaha qalbiga bini aadamka gegediyow qalbigayga taacadaada ku sug nebi maxamedna ducooyinkiisii bay ka mid ahay ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa salaad kasta markuu ka baxo inuu ilaahay baryayay allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ilaah igu sug ariiqa iyo cibaadada iyo mahadnaqaaga qof soo jeeda noqo markaa oo ku talagelaya noloshan uu ku jiraa inay imtixaan tahay imtixaankaana kuwa dhaca
iska ilaalinaya inuu ka mid noqdo. marar badan waxaa laga yaabaa inaad adigu doorashada lahayn beejka kugu soo baxaya imtixaanka ka mid ah. ma mid caafimaad baa mise waa mid xanuun? ma mid ladnaaneed iyo dhaqaalaa mise waa mid faqri? ma mid nabadqab iyo degaanba mise waa mid nabad la'aan iyo colaadeed? imtixaanka ku imanaya noocuu yahay ilaahay baa garanaya, laakiin adigu jawaabtaad bixinayso ayuunbaad abaalmarka ku helaysaa. marka waxaa naftayda iyo tiinaba kula dardaarmaya, xaqu markuu inoo caddaado aan ku sugnaano, xaqu markuu inoo caddaado aan ku sugnaanno oo nafta ku xijinno diinta inay haysato mahma kaanat الظuruuf. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وعليهم أولاد الشيخ أنه دعاء الثالث ما حسنا أن dadku in badan ducay dalbadaan. ducana nabigu wuxuu tilmaamay qofka muslimkee ilaahay ka baqay gacmaha kor u taaga, in allaha xayiy, ilaahay inuu xishoodo oo ka xishoodo inuu faramadhnaan diro. horta kalsooni ilaahay ku qaba, baryadiisana inuu idinka aqbalayo ku kalsoonaada. haddii mashkaladu ku qabato, nebi maxamed wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, rabbi intuu soo dego habeenka xaggiisa dambe inuu yidhaahdo ma jiraa cid wax weydiisanayso aan wax siiya, ma jiraa cid ibaryaysa waa baryadiisa aqbala. aan intaynu kacno habeenka in niskiisa dambe ilaahay barin oo cibaadaysana ilaahay wuu ka aqbalayaa. kalsoonidaas iyo ku qab ilaahay subxaanahu wa tacaala, allah araxmaan araxiimka ah, kalsoonidaa ku qab, wuu kaa aqbalaya, waa kaa ajiibaya. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إلو جدك حقا نقصه، إلو دينت نقدي، إلو خاتمة يد خير نوخطي، إلو انت اللي نبته هيستر نبته كفوشي، انت نقل انت إلهي ونوض هنوني، انت بكته إلهي سبحانه وتعالى وحكبر إنه عافمات خير قبسيه، انت عافمات قبتين إلهي وزياديه، انت نبك لها ستين إلهي نبت كفرجه، انت علاده دحت علينا علاده إلهي كنحقاضه. قريها الدميين إلهي سبحانه وتعالى قول المسلم وهقاقا يالله كدقه انتي انا دشير لمتين الله ونحرسته إننا ربنا وقد نحرسته. dadka muslimiinta caam ahaantood bay ilaahay dembigooda dhaafo una naxariisto kuwoodii dhintay. sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.